اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. وقت مالتا aan isweydiina dareen ma ahay waxa weey aad iyo aad in qaranka haduu baahidu ay timaado in wax loo qabto waan ku qasbanahay. midda labaad waqti waxa lagu jiraa maartay food la galayo oo campaign badan loo baahan yahay waxaan loo arkaa in maartay loo gartay in aan campaign-kaasi xisbul xaakimka aan maartay xoojiyo waqtiguna uu iska qorayo oo saacad qoroti Ilaahay meesha taala marka anigu waxaan u arkaa in shaqo qaran laga maarmi waayo mar warka waan fulinay waayahay wasiir magacaygu waa Xasan ka artay waxa ka soo jeeda gobolka Facweyne awla sidaan sheegtay maxaad ku soo kordhin kartaa xisbiga sidaad sheegtay waxa la galayaa campaign doorasho soo dhow maxaad soo kordhin kartaa baasle waxaan awalba waan wadi taasi maaha xisbiga kulmiye lixda gobolka awdal kaliya kuma koobnay isagoo gobolka awdal aan ka soo jeedo gobolka awdal waad arki doontaan maalimaha soo socda dadkii gobolka awdal dhammaan inta ku nool iyadoo aan kala qaadin ilaa xalay waxa aan telefoonka ka seexan waayay maantana waxa filayaa in ay taageero weyn ay xisbiga iyo ma aragtay doorashada xalka maanta la igeeyay ay aad ugu farxeen gobolada kalena waxaan ka qabaa iska daa awdal kaliya in wax badan ka soo hinto waayeen mudane wasiir magacaygu waa Betri Koosar laba su'aalood ayaan jecelahay inaan isku ka raaciyo Axmed Xaaji Daahir Cilmi siyaasi weyn ayaa tahay dad badan oo Somaliland waxay isweydiinayaan in Axmed Xaaji Daahir Cilmi iyo madaxweyne Siraanyo wixii kala dhaxmaray waa la ogaa iyo hadaladii uu isagu waran jirayba maanta maxay isbedelay talabaadna waxa aan ku raaci lahaa hadda waqtiga waa ogtay xukuumadda u haray waaba gabaabsi wax harsan ma jiro marka siyaasi weyn adigoo ahaa iyo xilligan wax ma ku dhimi kartaa maadaama siyaasadda muddo dheer ku jirta waqtigiina iska tagayba horta waa mid wax loo xidhimaysaa ma jirto waxay kordhisay mooyaan way fiican tahay in aan maartay daqiiqada u dambaysaa 3 bilood baad ka hadlaysaa maxaan kula aan ku soo biiro way aniga waxay ii tahay nin aan marka hore dawladii way socotay wala la isku hayo nin loo baahday in uu ma artay meel mugle dhiibideedo hadii amaanta la ilaa wasaaradda maaliyadda lagu dhiibay macnaheedu ay sameeyaan ma jirto waa waqtigu waa gabaabsi waxaan u arkaa in baahi campaign-ka loo qabo baahida campaign-ka ana tii hore haday ahayd iyo tan haday ahaydba waxa weeyaan hadii baahi ay timaado qaran ma shaqeynaa qarankuna inaan ka sinaano weeyaan waxba ay soo kala gaareen ragnimadayba ku jirtaa badda inay rag maartay wax isku qaban karaan waxna kala goosan karaan waana lagu mahadnaqayaa kullay waad ogtihiin laba xisbi baan ahayn hardliner baan ku ahaa maanta waxa loo arkaa dimuqraadiyadda inay inooga dhawaayeenba oo ay keeneenba raggii maartay Highland isku hayeen in maanta la yiraahdo kaalay maanta inkastoo ku jiray waayahan dambaba oo aan xisbi xaakimka faradranarka ka ahaa dadka campaign-ka u waday maxaan ku lahayn Musabbix Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Saylo labadaba aan dhabarka ku sitay ana sidii doono hadii la dhiibin lahayna taawun baan ahaa tiina imkana waxay guul ku sii daratay anigoo maartay magacii maamuus sii wada waxa weeye ma haldaasi Ilaahay baale aniga waxay tahay sharaf maalinta hadii second ka haray ما هو سبب laga dhigay wasiir maartay musharax ku xigeenka isla maxaan kula madaxweyne ku xigeenka dalka sida uu soo saari lahayn waa in soo baxayaan xasan aniga sharafii waxaan u arkaa in kamarawa meesha yaala waan ku shaqeynayaa waan ku wadayaa waan ku taageerayaa madaxweynaha iyo intii garatayna waan ugu mahadnaqayaa inaan qaranka meel kasta oo joogo iyo meel iyo daqiiqada la joogo la qabto marka wasiireen imika مولا هيد مدحوين سامحناكم
horta kolley waxa weeye nin weyn ugu yaqaana aniguna mana yeerinoo waa siyaasaddan waxaan qabaa dadka isku hidee iskugu jeclaadana waayo waxa weeye labadu wadda dhinac bay ka weheen horena maaragtay dataydii waan waday waanan jeclaa inaanu helana waanu jeclayn maanta hadduu helayna dee intaasoo sanadoodba waan joogo waanu ka aamusnayna waxaan uga aamusnay waxa weeye war raggii helay ileen dalku waa xilku waa iska meertee in loo daayo maantana maxaan ku lahdaayey waxaan u arkaa maskax fiyow hadday iguba garteen annagu waan ugu mahadnaqa waxaan dimuqraadiyaddaasi waynu kuwa dee maaragtay calanka waa hoos jiray waanigii lahaa iminkana saraan u taagay iminkana laba gacmood baa ku taagay والله